الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ودرسي شناد عشر كتفسيرك جزء عامة ما أنت وحن قال لنا سورة الانفطار وسورة مكية كسو دقتي بعد والنازعات أي سو دقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب وحده سبحانه وتعالى إذا وقت السماء صمد انفطرت أي دلدلعضو مركي دنبلنت السبد وأي جيحانتو أي الفليرة نقطو وانسو مرني إذا شمس كورت وسماد قريب كمدة لكن حارق دونا إذا السماء شقت بانو إيمان دونت ويوم تشقق السماء بالغمام في سورة الفرقان سمادي مركه دلدلاعدو دلدلاع سي نقون هيا سي ودع هيا الله رني سبحانه وتعالى إله با قرنايا لكن سورة waxay sheegaysaa qaab dhismeedkii koonku inuu baabi'i doono oo samadu ay ugu sareyso guriga markuu kor ka soo dumo waa u dhamaatay samada u sareysa inay dildilaaci doonto oo eber noqon doonto إذا وقت السماء صمد عركو انفطرت أي دلدلاعدو أو دنبلنتو وإذا وقت الكواكب حدوه انتثرت أي داتان صو داتان هديه مركي صو داتان صو دعدعان سمد waa dildilacday hidihiina waa soo daateen waa koon kharaaba hayo waqtigiisa dhamaaday وإذا وقت البحار بضها فجيرة la isku furo oo la isku dilaaciyo oo hal bad ay noqdaan badii baa isku furmay hal tafjiir yani waa la isku qarxiyay macnaha waa la isku furay la isku butaaciyay hal bad ay noqdaan ama koonko dhan baaba biyo noqdayba badii baa lagu sii daayay hadda ilaah baa naga hay subhanahu wa ta'ala muhiidaadka iyo badaha iyo hadda waxa la yiraahdaa 70% Soomaa yani dhulka waa biyo 30 waa yaabisada inta aan geeyan waay Soomaa sida la yiraahdo binaadam soo yiraahdo way qiyaasta binaadamka haddii marka la soo fasaxo biyuhu dhulko dhan bay daboolayaan badii baa la isku furaya marka baduu marka kuwana waa macaan yihiin wabiyaashana kuwana waa macaan yihiin waa wabiyaasha kuwana waa kharaar waa milix waa badaha labada bad waa la yiraahdaa labadaba maraj al-bahrayni yaltaqiyani labada bad waa la yiraahdaa kuwa maalixana waa bad waa biyo badan yani kuwaan macaanna waa bad ayakana waa haddii la isku furo mara kulli wax weyn bay noqonayaan tafjiirka wada waqtiga albihaaru badihi fujira la isku furo oo hal bad ay noqdaan wada waqtiga alqubuuru qubuurta buuthira la soo foqo la soo qufaa bixiyo buuthiradu waxa weeye buuthirad macnaheedu waxa weeye ciidii baa laga faagay waa laga soo baxay ana dadkii baa ka soo baxay ma markii u dambeeyso la soo baxaya bise gariirka dhulka dadku la soo dadkii banaanka keenay Allah aclam sida ay tahay marka u dambeeyso waa la soo baxaya oo qofka ciidu ka soo dhaxbaxaya uu soo dhalan sida geedkii raasa nafta la gelinaya wada waqti alqubuur xabaalaha bu'thirat la caragadiyo la qufaa bixiyo waxa la isku daray in la qufo hadan wixii ku jiray banaanka la keeno waa shardi intaas maxaa dhacaya marka علمت waxay ogaanaysaa nafsu nafi ma waxa acmaasha falka qadamat ay hormarsatay oo hore u samaysatay wama akharat waxay dib dhigatay dhowr tafsiir baa ku jira laakiin waxa uu isleey waa uu raajixsan yahay ama wuxuu jiye ibn Jariir Allah u naxariistee ma qadamat in la yiraahdo qofku wuxuu horu marsaday oo intuu noolaa uu sameeyay laakiin gadaalkii aan la sii sameyn gadaalkiis khayr shar wuxuu hormarsaday laakiin ma ku dhintay ka bacdi istaagay wa akharatna waxa weeye intuu qabriga ku jiray wixii looga dayday khayr buu sameeyay khayrkii baa looga dayday ajar baa u socda man sanna sunnatan hasanatan falaw ajruha wa ajru man amila biha Soomaa ama xumaan buu sameeyay xumaan buu bilaabay qabrigu galay xumaantii baa sii socoto lagu dhaqmaya man sanna sunnatan sayi'atan fa wizru man amila biha waxa u fiican dadka u nasiib badan
nasiib waxaa looga jeeda macnaha qofka xumaantiisa la dhimato, qofka xumaantiisu ay la dhimato oo haddaa xumaan samaysa aysan kaa harinba. laakiin haddii xumaan lagaa dhaxlo oo xumaantii lagu sii dhaqmahayo dembi baa kuu soconaya, sayi-aad baa laguu qoraya. marka waxaa fiican in khayr kaa haro. waarimi sida maxaa la yidhi, war ha kaa haro, war fiican weeye. wainama almaru xadiiثu bacdahu fakun xadiiثan xasana liman wacaa. shay ka fiican ha ka hartiya wanaag iyo khayr. hebel nin fiican buu ahaa, khayr baa masaajidkan u dhisay, ceelkaanu qoday, isbitaalkan ayuu wadadaanu sameeyey, dadku khayr baray, waa wanaag. calimata nafsu naf waxay ogaanaysaa maa qadamat waxay hormarsatay oo wanaag iyo xumaan ah intay noolayd. waa kharad waxay dib dhigatay oo markuu dhintay kabacdii looga dayday oo khayr ah ama xumaan ah. oo khayrkiina ajarkiisaa u soconaya, xumaantiina maxaa u soconaysa, dembigeedaa u soconaya, dembigood. inaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum wakula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin. marka qaybtaas waxay tusaysaa in qofku ku talagalo qiyaama inuu dhacayo dhab yahay, khayrna uu sameeyo, khayr hormarsado. haddii waxaa laga dhaxlahayana khayr laga dhaxlo oo khayr ka dambeeyo oo khayrka looga daydo ee xumaan aan looga dayan. qaybta ku xigta insaankii ayaa la baraarujinaya. bini aadamka cajaayib buu leeyahay. waxaa la xusuusinayaa abuuristiisi baa la xusuusinaya. waxaa lagu yeerayaa magacii ah al-insaan ayaa loogu wacaya. yaa ayuha midkan al-insaanu insaanahu, kaagaan insaankaahu. insaanku marka waa darajo sare oo ka saraysa noolaha kale ka saraysa. insaan marka magaca lagugu dhawaaqo noolihii kale waa ka duwantahay. ilaa insaanka wuxuu ka mid yahay xayawaanaadku ka mid yahay, nooluhu ka mid yahay, laakiin nooluhu waa kala sareeya. insaankaa u sareeya sababtoo caqli iyo garaad iyo wuxuu leeyahy fahm oo ilaahay siiyey subxaanahu watacaala. isagaa marka loo dhawaaqaya. yaa ayuhaa midkan al insaanu insaanahow, maa maxayba garaka ku khalday, ku kadiyey, birabbika rabbigaa inaad caasisid, rumayn weydid, adeeci weydid rabbigaagii alkariimi wanaagsanaa. yaa ayuha alinsaanu maa garaka. guruurka waxaa la yihahdaa kadada, qofku inuu shay sameeyo inuu nafci leeya uu moodayo nafcina aan lahayn, dur mooyaane. qofku inuu shay sameeyo uu isleeyahay waxtar buu leeyahay, waxtarna male, dhib maahane. marka alle wuxuu leeyahy insaanow, in aadamow, rabbi subxaanahu watacaala alkariimi wanaagsanaa inaad rumayn weydid, adeeci weydid, yaa ku dhagray, yaa ku siray. alladii rabbigoo bal fiiri, khalaqaka ku abuuray. insaankaaga horta yaa insaan kaa dhigay? qof lii ma jiro anaa is abuuray, ama aabbay hooyaa i abuuray. rabbi baa ku abuuray subxaanahu watacaala. wallahi insaanku waa laga yaaba insaanku markuu fasaado oo ilxaad galo inuu wareero. waa iska imid anugu see u timid adiga? qalimkaana yarkaa xataa iskama imaan karo, adiga iska daay, waa iska imid. alladii rabbigoo khalaqika ku abuuray adiga insaanka, fasawaaka ku sinay. rabbigii ku abuuray, ka abuuray, haddana abuuristaada sinay. basawaaka qofku wuxuu ka kooban yahay ajzaa, ka kooban yahay qaybo, qofku ka kooban yahay qaybisaa si sinan baa rabbi u abuuray subxaanahu watacaala. laba indhood meeshay ku yaaliin, sida loo abuuray si sinan waay. indhuhu hadday kala weynaa ama kala yaraadaan, ama midna halkan ku taallo, midna halkan lagu dhigo, halkan la dhigo meeshaan kore. dhegihii midna haddii halkan lagu dhejiyo, midna halkan lagu dhejiyo, ka waran adiga. sida rabbi u abuuray subxaana watacaala qofka insaanka si sinan waaye. hadda waad garanaysaano dee insaanka waa la daraaseeyaa gebigiisaba, qaybihiisana waa la daraaseeyaa. jihaasyada kala duwan
الجهاز العظمي لفها بني آدم سو أبوريه جهاز جلدك دران كله سو أبوريه جهاز هضم عنده جبنته هذا قابل السن الجهاز الدموي الدورة الدموية ليجو صدق الشقية سور الجهاز التنفسي سيدا قفك نفسه يقيمها وياه جهازك شمك حاسة الشم يذوق ردنك يسمعك ومغلك بصرك أرق لمسك يعني جهازك إنسانك جهاز العصبي والمخ قيمها إنسانك كوبيه هذا والد دراسية وأنا واحد يا بضون من جهاز النطق مثلا هذلك عرب كلية ما مسكح ولا شقية هذلك قفك مركو ومقلا وح مركو مقلا مسكح ذو جود مسكح ذا ترجمته هي جوابته كاسيت كشيء فهمت أنت أسمرك قابك وسنية هي لبذا قعمود لبذا اللغات ها لبذا كليوت لبدا سنبابود ها ودنو محولا لما قيبة سومالها ودنوها سوم ساسو بضين أيمن والأيسر منها يعني قيبها تخصصوا معها لكن ها قيبها سيدة إلهي أبو سبحانه وتعالى وأسنا سياب له وددك هذا كنت تخصصي قف بقى كنت تخصصي عندها بس وبرنا وانت وقت يكون هذا يا maskaxda ayada wax badan ba laga yaqaan baa leeyahay bini aadamku aqoonta Ilaahay si wax badan ba kama yaqaan jihaaska tanaasuliga si dadku taranka sida u yimaado ajaayib soma Ilaahay wad subhanahu wa ta'ala alladhi Allah kariimka oo khalaqaka ku abuuray oo fasawaaka ku sinay jirkaaga qaab ku sameeyay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim oo fa'adalaka akeeyay فعدلك وحوي لبضا قعمود اسليغيهن ما كلا دheer hadee saayin ka hor laba gacmood saa kala noqdaan laba loo hadee kala dheeraadaan dadka shilka gala sentimeter hadii lugtu ka dheeraato qofku socodku dib ku noqonaa saas uu leeyahay ama waxba la geliyaa kabadha dheer loo gelinayaa oo mid baa si lagu isticmaalay sentimeter ama nus sentimeter ba lugtu wax yar bay gaabatay socodku dib u noqonaa لوجي باسنان كعميه باسنان دجاها سنان إندها سنان جيرك وسنية جيرك تعديل هو الأكان تجيرك هو فسواء كان واحد قاب كقف الله أبوري وجيرك سلو سمي إنسانك الذي الله خلقك كأبوري أديك إنسانك أو فسواك جيرك السنة قاب كل سنة فعدلك كي يحمنها في أي صورة مدي كوهو في أي صورتي كوهو ما صورة دا شاء دون الله ركبك إسكا كاساري إسكا كرسي قابكو دون كو إكيسي رب سبحانه وتعالى قابكو دونه كو إكيسي مرة وحوة كان صعبها مرنا هو يدا مرنا أبتغى مرنا أديرك مرنا إيدادا مرنا هبريرتا مرنا أول هراء ها نبي النبي صلى الله عليه وسلم عربه ودي عد سلانتنا وعدها يوقبها سلانتي ويل مدوبي دش هو شك بقى سو مجيد النبي سوقنا يحيى صلى الله عليه وسلم قال ما لا ها وقال كور قال وعسعسه وقدوديه سو مدو بعد من كجرا سير ها او maxaa ka keeno yiri سيري لا الله نزوع عرق waxa la yaabay xidid hore rati hore meelaha inuu jiitay si wala alla ibnaka nazaau cirq waxa la yaabay wiilkaagana inuu jiitay asal hore wiilkaagana asalka usuusha waxa ku jira madow ba ku jira usuushaada adoo cadaatid haweenta cadaato laakiin biyahan wiilka laga abuurayo iyo waxantan haweenta cunuga laga abuurayo waa hidaha sidaan ma ahan labadina kaliya awowayaal hore sidaan ama midab bay sidaan ama dhaqan bay sidaan ama cuduray sidaan ilaa ba garanay subhanahu wa ta'ala marka Allah muxuu yiri fi ay surati ma shaa rakabak ma qaar wax yiraahdeen haduu alla doono xayawaan ka dhigi lahaa insaan ma ka ma dhigay maduudo rabbi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha
في أي صورة صورة مدي كهو ما صورة ده شاء دون الله ركبك إسكا ساري الله سبحانه وتعالى نعمة كو قلي إنا عاسس وأمرك سديد oo ku gaalowdid yaa kugu khalday binaadamo maxaa kugu qaaday culimada qaar waxay yiraahdaan jahluhu baa ku qaaday jahli baa qof ku qaaday qaar waxay yiraahdaan shaydaanuhu baa ku qaaday tan quraanka wuxuu ka digay quruurka laba dhinacba waa ka yimaada quraanka marka fiirisid falaa taqurrannakum alxayaatu ad-dunya walaa yaqurrannakum billaahi al-gharuur qofka adduunyada waa khaladaa maadada adduunyada dhalaalka adduunyada waa khaldaa been buu sheegaa markaasuu gaaloobaa shaydaankuna waa dhagraa cid kastoo ku dhagarta marka inaad garan weyda rabbigii ku abuuray subxaanahu wa tacaala waxaasoo nicmaha kuu galay suuratu cabasan ku soo marnay falyandur linsaanu mima khuliq falyandur linsaanu ilaa dacaamihi wataan soo marnay aayadda qaybta ku xigta ama maqadca ku xiga oo saddexaad sababta keentay qofku inuu gaaloobo oo quruur galo bayba sheegaysaaba kallaa bay ku bilaabataa kallaa ka joog ina aadamow ka joog quruurka iska daa inaa khaldintid oo rabbi subxaanahu wa tacaala rabbigii ku abuuray ee kariimkaa wanaagsanaa ee sidaa wanaagsan kuu abuuray inaad ku gaalowdid ina amarkiisa didid iska dhaaf kallaa ka joog bal kaba daranba quruurka waxaa ka daran oo qofkan darajadaa gaarsiiyey waxaad samaynaysaan wax ka daran oo ah tukadibuuna waxaa beeninaysaan bidiini abaalmarinta waxa keenay dadku inay quruur ku dhaco oo rabbi inkiraan subxaanahu wa tacaala oo rabbi caasiyaan waxaa keenay waxa weeyaan qiyaamaysan rumaysanayn musiibo dhan waa maxay in la is abaal marinaya ma rumaysana in la is abaal marinhayo addiin waa abaalmarinta wey yowm uljazaa oo qof kasta wuxuu sameeye lagu abaalmarinhayo maalinta maba rumaysanaba taasaa waxay keenta marka maadaama aysan rumaysnayn qiyaamada iyo yowmuldiin aysan rumaysnayn inay rabbi ku gaaloobaan inay xumaanta falaan inay wanaagga ka dheeraadaan kallaa ka jooga ka hara quruurka bal kaba daranba mid ka daran bay sameeyeenoo waxa u keenay quruurku waxa weeye tukadibuun ama inii keenay tukadibuuna waxaa beeninaysaan bidiini qiyaamaha mukhaadaba yani asluubka iltifaat khidaab baa laga dhigay tukadibuuna waxaad beeninaysaan waxa inay khalday oo rabbi aad u rumayn laadihiin xaqa u raaci laadihiin tukadibuuna waxaad beeninaysaan bidiini abaalmarinta wal xaal baad beeninaysaan ina calaykum korkiina u ahaaday laxaafidiina kuwa ilaalinahaya oo waardiya kiraaman wan wanaagsan oo ahlu sharafa oo dhowrsan kaatibiina kuwa wax qorayaal ah oo yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaa samaynaysaan haye waxaa la yidhi qiyaamaa beeniseen laakiin ma ogtihiin qiyaamo beenisaane in xaafidiin malaa'ig wanaagsan ina in la socoto wa ina calaykum alxaafidiin waardiye inka ah oo in la socda malaa'igtaa tilmaanteed waa maxay kiraaman wan wanaagsan oo dhowrsan qof wuxuusan falin ama uusan samayn uma qoraan dadka ma maagaan maba kula hadlaayaba maba ku dhibahayaba oo kula socon meeshaa maxaa ka fahmaysaa wa ina calaykum alxaafidiina markii waardiye lagugu daro waa is ilaalinaysa weliba waardiyaha kula socda markuu yahay qof ahlu sharafa kiraaman waad iska ilaalinaysaa xumaanta ka waran haddii nin ahlu sharaf oo qaraabada ah waalidka hadduu kula socdo xumaan ma samaynaysaa yaa ma samaynaysa is ilaalinaysa ninkaan qofkaana ixtiraamaysa laakiin malaa'igta ka waran oo kula socota meel kasta kiraaman kaatibiinana qorayaal waxbay qoraan waxaad samaynaysid maa yalfidu min qowli ilaa ladayhi raqiibun catiid way qoraya
yaclamuuna waxay og yihiin maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan waa la socda. culimmada waxay ka qaataan aayadahan tilmaamaya malaa'igta waxay dhahaan dadka shaqo loo dirsanayo waa inay tilmaantaan leeyihin. dadka wax loo dirsanayo siba qorayaasha ma dadka wax qora waa inay tilmaamahan laga helaa. xufaad kiraaman inay dad wanaagsan dee oo aan khaa'iniin ahayn. kaatibiin dad wax yaqaana dee wax qori kara. oo yaclamuuna maa tafcaluun dee taas waa qeybe laakiin wax garanaya dad wax garanaya wax loo dhiibtaa oo wax yaqaana. laakiin dadaan waxna aqoon qofku waxa la yidhaha marka shaqo loo dhiibanayo alcilmu iyo walamaana alquwatu walamaana alcilmu walquwatu walamaana waa in laga helaa. kalaa bal tukadibuuna biddiin walxaal baad qiyaamo beeninaysaan ina calaykum korkiina u ahaaday dheh laxaafidiina kuwa ilaalinhaya. ina iyo laxaafidiina tawkiidka sida loo geli fiir laba tawkiid baa ku jirta. kiraaman wan wanaagsan malaa'ig ahlu sharafa. kaatibiina wax qora. yaclamuuna waxay og yihiin maa tafcaluuna waxaa samaynaysaa. qiyaamaha la tegeyba dadka labadan bay u kala baxeen. ina alabraara dadka wanaagsan ee baariyaasha ee rabbi adeecay lafii naciimin barwaaqay ku jiraan. dadka baariyaalka malaa'igta waa qoreen. maxaad u malaynaysaa haddii waardiye lagu raaciyo iyo dad shaqaalaa le ninkan daba jooga wax ka soo qora ma laska dhaafayaa. malaa'igtan maxay ku daba joogaan? maxay u qorayaan acmaashaada? xisaab baa ka dambaysa. laakiin malaa'ig baa ila socota oo laakiin waxba hadhow la xisaabin maayo. haddii qof shaqo loo dilaya qofka ninkan dowladuhu waxay leeyihin soomaan mukhaabaraad sirdoon bay leeyihin dowladuhu. sirdoonka hadday wax soo sheegaan ka warran qofkan saasuu sharqool buu wadaa dowladdu inqilaab haya ma la iska dhaafaya? ma la soo qabanaya? kii ammaanaana waa la dalacsiinaya. mar haddii dabagal jiro dabagalku wuxuu leeyahay xisaab buu leeyahay. dabagal mar hadduu jiro dabagalku xisaab baa ka dhalata. malaa'igtan kula socota marka gudaba joogto wax kaa qoraysa diiwaanko ay qorayaan xisaab baa ka dambaysa. xisaabta marka saa tale noqoto. ina alabraara dadkii baariyaalka lafii naciimi nicmay ku jiraan barwaaqay ku jiraan. culimmadu waxay yidhahdeen baarigu waa qofka toosan ee rabbi adeeca. nicmadu waxay dhaheen aakhiro keliya maaha adduunka nicmay ku jiraan dadkaas. qofkan toosan ee rabbi ku xiran ee rabbi koonkan abuuray ku xiran hadda adduunka nicmay ku jiraa. wixii haddii khayr dhaco oo wanaag hadduu helo wax wanaagsan hadduu helo rabbi subxaana wa tacaala u shukriyaa. hadduu dhib ku dhacona waa sabraa. markasta khayr buu ku jiraa. hadda somin arag bahalkiiba hadda adduunyada saabtay fayriska muxuu aha corona miyuu aha corona adduunyada saabtay. gaaladii kuwaaba isdilay iyadoo lasoo gaarinba iyadoo lasoo gaarin bahal ku dhicinba waaba isdileenba walbahaarka ka haysta. muslimkana kii ku dhacana wuu sabrin kii aan usan ka dhicina ilaah buu baryin kii dhintaa waa ajar ilaahi ha u naxariisto ajar buu rajaynayaa. waaw male walbahaarka gaalada haysta iyo cabsida adduunyada waxa isdeldela waxa u badan gaalada leeya waa horu mareen ilbirqsiga kuba isdeldelhayaan jabaano ingiriiso maraykano faranso waxaas. laakiin muslimiinta iska fuqarada masaakiinta waxba isdeldeli maayo. qof soomaalida aragteen ee dhibaatadu ka badatay oo abaaraha iyo qaxa iyo isdilka iyo qaraxa iyo wax isdilay waaye naadir. baryahanaan maqalnaa ciyaal yar yaroo maarta lehe gabar baan jeclaada waa maarta la ii diiday wiil baan jeclaado wax maasaa dad maarta gaalada ku ta'auray baad maqlaysaa. waxaan macno lahayn aan tiro lahayn xisaab lahayn. ina alabraara dadka wanaagsan ee baariyaalka lafii naciimin barwaaqay ku jiraan adduun iyo aakhiraba. wa ina alfujaara dembiilayaashu kuwa fujaarta dembiilayaasha ee rabbi caasiya subxaana wa tacaala waa gaaladee lafii jaxiimin jaxiimay ku jiraan. jaxiimay ku dhex jiraan. yaslowna way gelayaan waa ku gubanayaan jaxiimada yowma addiini maalinta abaalmarinta. soo marka hore ma ay beenin kalaa bal tukadibuuna bidiini soo ma ahayn. maalinta jazaha jaxiimay gelahayaan oo ku gubanayaan. wamaa hum ayaku ma aha canhaas jaxiima biqaa'ibina kuwa ka maqnaanhaya. markasta xuduur bay ku jiraan waa joogaan marna ka maqnaan maaya absent haddaa ilbiriqis ka bixi maayaan. dadka labadaas noqdeen
ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim. yaslowna way gelhayaan haa jaxiima yowma addiini maalinta abaalmarinta wamaa hum ma ahaanin canhaa jaxiimada biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya ma ka maqnaanaya. qaybta u dambeysa suuradda oo ah weyninka qiyaamada, maalinta qiyaamada weyninkeeda khatarteeda baa la isxusuusin. alla wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo qof kastoo in lala hadlo mudan, maa maxay buu yahay yowmu ddiini abaalmarinta maalinteedu miyaad garanaysaa yowmuddiin. waxaan soo marnay moogtahay kalaa bal tukadibuuna biddiini yaslownahaa yowma addiini. yowmuddiin maa taqaana adu nebi moxamed sal alla alay slam miyaad garanaysaa, cilmigaagu miyuu gaaray? haddana waa lasii adkeeyey uma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam qof kastoo in lala hadlo mudan, maa yowmu ddiini abaalmarinta maalinteedu waxay tahay. ibn cabaas waxaa laga wariyey wuxuu wamaa adraaka haddii qur-aan kusoo aroorto rabbi waa ka jawaabaa, waa caddeeya. laakiin wuxuu wamaa yudriika ma caddeeyo, wamaa yudriika lacala saacata takuunu qariiban. marka waa su-aal adag waaye. su-aashan waa tahwiil, waxaa la weyneynhayaa maalinta xaalkeeda. nebi moxamed sala allahu alayh wasalama miyaad garanaysaa adugu, miyaa og tahay, yaa kuu sheegay, waa lagu soo celiyey. yowma maalin weeye laa tamliku aysan hayn nafsu nafsi linafsi naf kale shay-an waxba. waa maalinta nafna naf kale aysan waxba tari karin, shay wax yarba ha aatee wax ay tari karta ma jirto. maalintaas maalin waxa weeye aanan qofna qof wax u qaban karin. adduunka marka la joogo waxbaa la ysku taraa. qofku markii dhib ku dhaco garab buu helaa, ama asagaa isdifaaco waxbuu haystaa, ama xoog buu leeyahy waa iska celiyaa cadowga, ama garab buu helaa. famaa lahu min quwatin walaa naasir, midna ma jiro. soo daaraq baan u tegi doonaa. yowma maalin weye maalinta yowmuddiinku, yowma maalin weeye laa tamliku aysan hayn nafsu nafi linafsi naf kale shay-an waxba. waalamru arintu taladu yowmaidin maalintaa lilaahi alla u sugnaatay. maalintaas talada allah iskale, maantaba isagaa iskale. alaa lahu lkhalqu waalamru, abuurisana isagaa leh, amarkan isagaa leh. laakiin adduunka markaan joogno qaybo ka mida dhulka ilaahay baa niman xukumaan, boqoro, madaxweyne, kada waxbay marka ismoodaan. kuwaas amaray bixiyaan, kan hala xiro, kan hala dilo, xoolahan keenka xoogaa bay leeyihin. laakiin xagga markii la tago qiyaamaha liman ilmulku lyowma lilaahi alwaaxid alqahaar. cid kale wax ma haysataba, waa la qaawan yahay, dhar lama sito, dadku waa buri qab, dharba ma jiro, waxa xoola lama wato, qof kasta waa mudh, wuxuu sita male. walamru arintu yowmaidin maalinta lilahi alla u sugnaato. maalintaa cid wax tarisa male. macnuu marka waa maxay? maalintaa loo diyaay waa maalin culus oo qofna uusan qof wax tarin. shafaacadu waa jirta, lakin shafaacada ilaah baa iskale, idankeeda asagaa iskale, ee cid wax tari karta male. qof kasta nafsi allow aniga ibixi. maxaa la rabaa marka maalintaa in lagu talagalo oo maalintaas iimaankii saxiixa lala yimaado, camal saalixa lala yimaado, ku talakelkiisa la yeesho maalintaas si qofku u badbaado. waxaa qur-aanku usoo celcelinayaa dadka ay gaalnimada ku fogaatay ee maadadii adduunyada ku talaxtay baa la kicin, hurdada laga kicin. war maalintaasaa jirta, war diyaar garooba, war iska jira say u kacaan. maantan adduunyada way ogtihiin dadku maaday noqdeen, xoolo un baa la raadin un, dadku wax miyir kale malaba. marka qur-aanku waa kicin dadka xaggaas maalintaasaa dambaysa ku talagala la leeyahay. allahna waafajiyo. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. wsala allahu calaa nabiyina.